السلام عليكم داود يا الكسور وهذا وركي ودنبي ودين هيو قراتي في قضبض aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne farmaajo oo gacanta ku dhigay qaar kamid ah xildhibaanadii ka soo baxay Puntland ee uu Siciidani soo saartay kadib kulan uu kula qaatay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Fahad Yaasiin oo ku amray xildhibaanada taageersan nabad iyo nolol in ay shahaadada xildhibaanimo ee rasmiga ah u doontaan guddiga doorashooyinka oo aanay isaga u xayirnaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ammaan iyo mahadcelin kala dul dhacay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Farmaajo oo labaduba qadka taleefanka kula xiriiray una ballan qaaday gurmad dhaqaale oo lagu garab istaagayo oo dadkii ku cayrtoobay dabkii qabsaday suuqa weyn ee magaalada Hargeysa waxgaradka gobolka Gedo oo digniin culus soo saaray iyaga oo sheegay inuusan ra'iisul wasaare Rooble ku dhicin in uu doorashada ka wareejiyo Garbahaaray iyo al-shabaab oo markii ugu horeysay ka hadlay dabkii ka kacay suuqa Hargeysa qodobada ay kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka Gratiif iyo diyaar garoob ayagoo dhameystiran isoo noqdo haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gratiif oo dhameystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka moogtahay walaalin boqolaal walaalaheen reer Hargeysa ah ay ku xoolo beeleen una cayrteeyay dabkii qabsaday suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa haddaba maanta ayay walaalaheen garab istaag inooga baahan yihiin waayo ifka lagu yahay walaal ee ku caawi wixii aad awoodo ee karaankaaga wixii tabarucaada ee aad awoodo haddii aad joogto dibadda iyo gudahaba ku hagaaji akoonada shaashada kaaga muuqda aan ku bilaabo sida hordhaca warkeena idinku sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa kulan saacado badan qaatay wuxuu kula yeeshay xarunta dalka looga arrimiyay ee Villa Soomaaliya qaar kamid ah xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo baxay dowlad goboleedka Puntland kuwa oo uu soo saartay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo u tartamaya sidoo kale kursiga madaxweynaha Soomaaliya oo sanadkan Siciid Dani musharax u yahay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa kulan gaar ah kula yeeshay aqalka Villa Soomaaliya ee Muqdisho oo xildhibaanada kale ah xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Kayse iyo xildhibaan Siciid Daahir oo kamid ah xubnaha ka soo baxay dowlad goboleedka Puntland ee uu Siciid Dani soo saartay si ay ugu codeeyaan balse iminka u weecday garabka Farmaajo labadan xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo doortay Puntland ayaa noqonaya xildhibaanadii ugu horeeyay ee laga soo doortay Puntland oo kulan la qaatay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo markale u sharaxan kursiga madaxweynaha Soomaaliya oo uu doonayo inuu dib ugu soo laabto sida ay soo dusiyeen ila wargal oo ka tirsan Villa Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka codsaday xildhibaanada uu la kulmay in ay isaga u codeeyaan oo ay taageeraan isaga oo sheegay inuu diyaar la yahay wax kasto ay u baahan yihiin xildhibaanada laga soo doortay Puntland wuxuuna madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ku faanay in uu diyaar u yahay u hiilinta dadka reer Puntland oo horeyba u garab taagnaa iminkana haddii uu mar labaad kursiga ku soo laabto uu ka shaqayn doono sidii Puntland ay u heli lahayd mashaariic dheeri ah si gaar ahna uu uga warqabi doono xildhibaanada laga soo doortay Puntland waxaa la aaminsan yahay in Farmaajo uu raadinayo xubno uu u maro xildhibaanada laga soo doortay Puntland oo ku dhow 50 xildhibaan kuwaasi oo isugu jira aqalka sare oo Puntland ay ka soo gashay 11 sanatar iyo aqalka hoose ama golaha shacabka oo Puntland ay ka soo galeen 37 xildhibaan madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya in ugu yaraan xitaa uu 10 cod ka helo Puntland maadaama uu hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani intii ay socotay doorashada xubnaha labada aqal ee dowlad goboleedka Puntland uu diiday inuu kuraas soo siiyo shakhsiyaadkii uu Farmaajo watay oo uu ugu horeeyay wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Jamaal oo kursi ka soo waayay magaalada Boosaaso balse haatan xubnaha uu Siciid Dani soo saartay ayuu doonayaa Farmaajo inuu kala furfuro oo uu gacanta ku dhigo si aanu Siciid Cabdilaahi Dani xitaa u gaarin wareegga ugu dambeeya ee codeynta doorashada madaxtooyada Soomaaliya taasi oo haddii ay meesha ka baxdo fursad siinaysa madaxweynaha xafiiska jooga ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu Farmaajo la wareego qaar kamid ah xildhibaanadii uu Siciid Dani soo saartay waa guul darro weyn oo siyaasadeed oo u soo hooyatay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo iminka safar ku jooga magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta halkaasi oo uu Siciid Dani kulan kula leeyahay xubno ka tirsan dowladda isu taga Imaaraadka Carabta oo kala hadlayo arrimo la xiriira doorashooyinka Soomaaliya
siciidani oo dhaqaale u raadinaya ololihiisa doorashada ayaa doonaya inuu maalmaha soo socda ka dego magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya halkaasi oo hadda soo dhaweyntiisa laga qabanqaabinayo wuxuu damacsan yahay inuu saldhigto muqdisho oo uu bilaha soo socda halkaasi ka wado ololihiisa doorashada madaxtooyada ee Soomaaliya dadaalka ugu badanna wuxuu Siciid Cabdilaahi Dani ku bixinayaa hanashada gudoonka baarlamaanka in shakhsi uu isagu wato uu ku guuleysto si ay ugu sahlanaato doorashada madaxweynaha in uu qaafudud ku qaato kursiga dalka ugu sareeya ee madaxweynaha balse inuu farmaajo tashkiiliyo qaar ka mid ah xildhibaanadii uu soo saartay oo xitaa kuraasta u xiray tartanka furan u diiday oo dartood uu ula kala dhintay xubno kale ayaa ka dhigan in Siciid Dani ay ku soo wajahan tahay guul darro culus oo aan la saadaalin karin halka ay ku dhamaan doonto maxamed cabdilaahi farmaajo oo horey u haystay xildhibaanada laga soo doortay koonfur galbeed qaybo ka mid ah xildhibaanada galmudug hiirshabeelle iyo gobolada waqooyi ayaa iminka ku taamaya inuu codod ka helo labada dowlad goboleed ee sida gaarka ugu kacsan ee Jubbaland iyo Puntland la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa kulan gaar ah kula yeeshay xarunta hay'adda NISA xildhibaano la baxay kudlada NISA kuwaasi oo baarlamaanka Soomaaliya ka soo galay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxaa kulanka ka qayb galay in ka badan 20 xildhibaan oo horey uga tirsanaa hay'adda NISA welina ka tirsan kuna biiray baarlamaanka Soomaaliya aqalkiisa hoose ama golaha shacabka xildhibaanada kudlada NISA ee ka badan 20 ee xaadiray kulanka ka dhacay xarunta hay'adda NISA ee magaalada Muqdisho waxa ugu horeeyay agaasimaha kumeel gaarka ee hay'adda NISA Yaasiin Faray Kulanajis iyo xubno kale oo muhiim ah oo iminka kamid ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA sidoo kalena ku biiray baarlamaanka Soomaaliya kulanka ayaa lagu falanqeeyay sida uu Fahad Yaasiin wali u weysan yahay uguna guul daraystay inuu helo shahaadada xildhibaannimo ee rasmiga ah ee uu ku fariisanayo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo talaabada xigtay ay qaadi doonaan xildhibaanada taageersan nabad iyo nolol gaar ahaan kudlada NISA ee Fahad Yaasiin horey uu u xayiray iyaga oo sheegay kol hore ilaa uu Fahad Yaasiin ka helo shahaadada xildhibaannimo inaanay iyaguna qaadan doonin shahaadada balse kulanka xalay ee Muqdisho ayaa lagu falanqeeyay sidii loo qaadi lahaa talaabooyin degdeg ah oo aan dhabarjab ku ahayn guud ahaan ololaha kooxda nabad iyo nolol ee kursiga madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoonka baarlamaanka Fahad Yaasiin oo kulanka isugu yeeray xildhibaanada la baxay kudlada NISA ayaa sheegay haddii ay ku sii adkaystaan in ay shahaadada diidaan oo ay banaanka ka sii ahaadaan xarumaha guddiga doorashooyinka oo aysan xaadirin in la ogaan doono awoodooda iyo tirada xildhibaanada ay haystaan sidaa darteedna wuxuu Fahad Yaasiin ku taliyay in xildhibaanada taageersan nabad iyo nolol si gaar ah kudlada NISA ee dhankiisa loo tirinayo inay sida ugu dhaqsaha badan ku qaataan shahaadada xildhibaannimo ee ay bixinayaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal Fahad wuxuu sheegay inuu isagu dadaal gaar ah ugu jiro sidii uu shahaadada ku heli lahaa isagoo oo ku andacooday in cidda ku dhagan aysan ahayn guddiga doorashooyinka ee heer federaal balse uu si gaar ah u haysto ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo guddiga ku cadaadinaya inaan marnaba isaga shahaado la siin wuxuu sheegay in aanay ahayn in la isku dul xayirnaado oo xildhibaanada aan muranku ku jirin ay isaga u xayirnaadaan isagoo oo dalbaday in xildhibaanada aan kuraastooda muranka la gelin ay soo qaataan shahaadada iyo kaararka aqoonsiga si isaga loogu doodo Fahad Yaasiin ayaa sheegay inuu isagu shahaadada heli doono oo aysan jirin cid ku dhacda in ay gebi ahaanba u diido ka mid noqoshada baarlamaanka Soomaaliya wadahadalada iminka socda ayuu Fahad Yaasiin sheegay inay meel wanaagsan marayaan ugu dambeynna uu rajaynayo in wadahadaladaasi ay miro dhalaan oo uu helo shahaadada rasmiga ah ee ka mid noqoshada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inuu Fahad Yaasiin ku dhawaaqo go'aan culus oo u muuqda mid dhabar jab ku ah hankiisii ka mid noqoshada baarlamaanka ayaa loo arkayaa mid guud oo go'aankani la xiriira in loogu daneeyo ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo maadaama xildhibaanadii Farmaajo taabacsanaa badankoodu ay diideen inay doontaan shahaadada xildhibaannimo kadib markii lagu dhagay qaar ka mid ah xildhibaanada u soo baxay Farmaajo ee ka soo kala baxay dowlad goboleedyada Hiirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa iyagu wali diidan inay shahaadada qaataan marka laga reebo dhowr xildhibaan oo garabyada mucaaradka taabacsan kuwa oo iska xaadiriyay xarunta guddiga doorashooyinka ee Muqdisho balse aqlabiyada xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa ku sugan
magaalada Baydhabo Janaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed halkaasi oo ay joogaan iyada oo hogaamiyaha Koonfur Galbeed uu ku amray xildhibaanada inaanay tagin Muqdisho aysan shahaadada doonan wuxuuna ku andacoonayaa in Koonfur Galbeed looga dhagan yahay 4 kursi oo aysan guddiga doorashooyinku xaq u lahayn in ay hakiyaan kuraastaasi doorashadooda oo horey loo qabtay hase yeeshee xildhibaanadii Muqdisho ku sugnaa ee farmaajo taageersanaa gaar ahaan kuwa la baxay kudlada nisaa ee uu Fahad Yaasiin horey u soo saaray ayaa iminka iska xaadirinaya xarunta guddiga doorashooyinka ee agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde si ay u soo qaataan shahaadada ka mid noqoshada baarlamaanka Soomaaliya xubnaha shahaadada qaadan doona ay ugu horeeyaan Yaasiin Faray iyo Kulanajis ayaa loo arkayaa in talaabada ay shahaadada ku qaadanayaan ay quusi gelin doonto helitaanka Fahad Yaasiin ee shahaadada rasmiga ah ee xildhibaannimo maadaama kolkii hore uu ku andacoonayay in xildhibaano badan ay banaanka dartiis u joogaan sida darteedna ay lagama maarmaan tahay in isaga shahaadada la siiyo oo loo fasaxo xubinnimadiisa baarlamaanka hase yeeshee haddii ay isdiiwaan geliyaan dhammaan xubnaha kale waxaa laga maarmi doonaa cadaadiska Fahad Yaasiin oo aan loo joojin doonin iyada oo sidaasi lagu geli doono dhaarinta xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo astaysan 14 bishan aan ku jirnay ee Abriil balse in Fahad Yaasiin iyo kooxda ololaha madaxweyne Farmaajo ay go'aan ku gaaraan in xildhibaanada taageersan ay u fasaxaan inay shahaadada xildhibaannimo ee rasmiga ah qaataan ayaa loo arkayaa inay dareemeen guuldarro siyaasadeed oo ku soo fool leh sidaa darteedna ay go'aansadeen in aanay xildhibaanadu isku dul xayirnaan awoodoodana aan la ogaan si ay taa uga badbaadaanna waxay go'aan ku gaareen in xildhibaanadu ay dhammaan shahaadada qaataan marka laga reebo Fahad Yaasiin iyo xubnaha kale ee Koonfur Galbeed looga dhagan yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ammaan iyo mahadcelin u jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo qadka telefoonka kula hadlay labaduba kana tacsiyeeyay mashaqadii ka dhacday magaalada Hargeysa madaxtooyada Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay baahisay wada hadal dhanka telefoonka ah oo uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi la yeeshay madaxda dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Muuse ayaa Farmaajo iyo Roble iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed uga mahad celiyay sida ay uga xumaadeen dhibaatadii ka dhalatay dabkii ka kacay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa halka oo hanti badan ay ku basbeeshay qoraalka koowaad ee ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu yiri madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo qadka telefoonka ugu tacsiyeeyay shacbiga Soomaaliland dibkii soo gaaray ee ka dhashay dabkii ka kacay suuqa magaalada Hargeysa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu u mahad celinayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo qadka telefoonka ugu soo tacsiyeeyay shacbiga Soomaaliland sidoo kalena madaxweynaha ayaa bogaadiyay shacabka Soomaaliya oo ka xumaaday qasaarihii gaaray shacbiga Soomaaliland ee hantidoodu ay ku basbeeshay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa mahadcelinta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa timid kadib markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo kulan la yeeshay xubnaha guddigiisa wasiirada uu shaaca ka qaaday dhaqaale ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu gurmanayso dadka ku xoolo beelay dabkii ka kacay suuqa Hargeysa qoraalka uu soo saaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu ku sheegay in qadka telefoonka uu kula hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo la wadaagay sida uu uga xanuunsaday musiibadii ka dhacday Hargeysa sidoo kalena uu u muujiyay sida ay dowladda federaalku garab taagan tahay Soomaaliland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa amray in si degdeg ah loo fasaxo lacag dhan 11 milyan iyo 700 oo kun oo doolarka Mareykanka ah oo ku jirta xisaabta dowladda Soomaaliya taasi oo horey loogu talagalay in lagu kabo mashaariicda horumarinta ee Soomaaliland balse ku xayirnayd bangiga dhexe ee Soomaaliya wuxuuna Roble amray in lacagtaasi loo wareejiyo Soomaaliland isla markaasina loogu gurmado dadkii ku xoolo beelay dabkii qabsaday suuqa weyn ee magaalada Hargeysa waxay u muuqataa tani talaabo weyn oo lagu garab istaagayo shacbiga Soomaaliland wuxuu sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ay garab fadhiyeen ganacsatada reer Muqdisho oo ku dhawaaqay in dowladda federaalka iyo ganacsatada Muqdisho oo iskaashaday ay ugu deeqeen magaalada Hargeysa ganacsatada ay hantidoodii ku burburtay dabkii halkaasi ka kacay adduun lacageed oo dhan 3 milyan oo doolarka Mareykanka ah iyada oo lacagtaasi marka wadar ahaan la isku daro deeqda loo fasixi doono Soomaaliland iyo tan ay yabooheen ganacsatada Muqdisho iyo ra'iisul wasaare Roble ay gaarayso 14 milyan iyo 700 oo kun oo doolarka Mareykanka ah
tanina waxay u muuqataa bilow wanaagsan iyo ifafaale muujinaya sida ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacbiga Muqdisho uga damqadeen dhibaatadii qabsatay walaalaha Hargeysa ee hantidoodii ku waayay dabkii ka kacay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa isla markaana ay u taagan yihiin sidii loogu gurman lahaa dadka ay dhibaatadu saameysay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu sidoo kale shir degdeg ugu yeeray gudoomiyaha bangiga dhexe ee ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho waxaana kulankaasi gabagabadiisa looga dhawaaqay inay gacan ka geysan doonaan gurmadka qasaaraha ee dabkii ku dhuftay suuqa Hargeysa ganacsatada ayaa ku yaboohay 2 milyan oo dollar halka uu Ra'iisul Wasaaruhu sheegay in dawladdu ay 1 milyan ku yaboohday iyadoo oo dhaqaalahaasi sida ugu dhaqsaha badan saacadaha soo socda loogu wareejin doono xukuumadda Somaliland maadaama uu yahay dhaqaale bilow ah oo loogu gurmanayo dadkii ay saameysay dhibaatadii dabka ka kacay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa wadahadallada ay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble la yeesheen mas'uuliyiinta ugu sarreeya Somaliland gaar ahaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u muuqda kuwo loogu gurmanayo laguna garab istaagayo shacbiga Somaliland lacagta 11 milyan iyo 700 ee kun oo dollar ah ee uu Ra'iisul Wasaare Rooble u fasaxay Somaliland ayaa ahayd mid muddo dheer ka xayirnayd xukuumadda Somaliland waxaana la sheegay in dhaqaalahan ay si gaar ah u xayirtay wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo uu horkacayo wasiirka wasaaraddaasi Jamaal Maxamed Xasan kaasi oo hakiyay deeqaha loogu talagalay Somaliland waxayna tani sababtay in bangiga dhexe ee dowladda Soomaaliya ay ku xayirnaato lacagta deeqda ah ee ku socotay xukuumadda Somaliland ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa deeqdan ayuu soo ugu dambeyn Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble amar ku bixiyay in sida ugu dhaqsaha badan looga saaro qasnada dawladda si loogu gurmado dadka reer Hargeysa ee ku cayrtoobay dabkii qabsaday suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa garbahaarayna waxgaradka magaaladaasi ayaa 6 qodob ka soo saaray dooda ka taagan doorashada 16 kursi ee gobolka Gado ee kolkii hore loo qorsheeyay garbahaaray balse iminka uu Axmed Madoobe u muuqdo mid gabi ahaanba meesha ka saaray dooda la xiriirta in 16 kursi oo kamid ah golaha shacabka lagu doorto garbahaaray odayaasha dhaqanka gobolka Gado ayaa soo saaray war-saxaafadeed ka kooban 6 qodob waxayna Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ku eedeeyeen inuu ku eegtay dulmi ay sheegeen inuu ku hayo maamulka Jubbaland ee uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxay 6daasi qodob ku soo koobeen walaacooda ka dhashay daahitaanka iyo hubanti la'aanta doorashada 16 kursi ee taala magaalada Garbahaaray oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland shacabka gobolka Gado ayaa waxa ay si durugsan oo taxadar leh isha ugu hayaan baa lagu yiri bayaanka talaabooyinka uu qaadayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble si loo xaqiijiyo qabsoomidda doorashada Garbahaaray sidoo kale kulamo ay yeesheen odayaasha dhaqanka ee Gado waxay isku raaceen in maamulka Axmed Madoobe uusan doonayn in ay doorasho ka dhacdo Garbahaaray sida lagu sheegay bayaanka sida darteedana waxay dalbadeen in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu wax ka qabto dulmiga iyo cadaalad darrada ay sheegeen in lagu hayo dadka reer Gado gaar ahaan Garbahaaray kuwa ku nool reer Gado waxay sidoo kale bayaankooda ku cadeeyeen inay aqbaleen heshiisyadii laga gaaray doorashada iyagoo aan aqoonsanayn maamulka Axmed Madoobe sida ay hadalka u dhigeen gudiyada doorashada ayay ugu baaqeen inay qaataan mas'uuliyadda doorashada Garbahaaray isla markaana ay magaaladaasi ku qabtaan doorashada si waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar ee arrimaha doorashooyinka dhaqanka gobolka Gado waxay ugu baaqeen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble in uu wax ka qabto muranka ka taagan 16 kursi ee gobolka Gado uusan ku eegan dadka reer Gado tacadiyada ay sheegeen inuu ku hayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyagoo oo sheegay in Rooble looga fadhiyo inuu qaato kaalintiisa hogaamineed Rooble ay sheegeen in ay taariikhdu sheegi doonto waxa uu yahay iyo shakhsinimadiisa isla markaana la eegi doono sida uu ugu cadaalad falo dadka reer Gado uuna u kala saaro dagaalka kala dhaxeeya Farmaajo iyo xuquuqda ay leeyihiin dadka ku nool gobolka Gado gaar ahaan degmada Garbahaaray ee ku aadan inay martigeliyaan doorashada 16 kursi oo kamid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxay ku baaqeen in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto arinta 16 kursi waxay sidoo kale sheegeen in doorashada gobolka Gado ay Rooble ku tahay tijaabo taariikhi ah oo si gaar ah u taabanaysa mas'uuliyadiisa iyo cadaaladiisa
iyaga oo sheegay inay ka warsugayaan tallaabada uu qaado ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. ugu dambeynna kooxda al-shabaab ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dabkii xoogganaa ee ku dhuftay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa kaasi oo ay ku xoola beeleen ganacsato badan. bayaan goorsii horeysay ka soo baxay hoggaanka sare ee kooxda al-shabaab ayaa lagu sheegay in bulshaweynta reer Hargeysa ay la qaybsanayaan xanuunka musiibadii ka dhalatay dabkaasi. sidoo kale qoraalka ka soo baxay ururka al-shabaab ayaa lagu dhiirigeliyay dadka reer Hargeysa inaysan quusanin maadaama musiibada ku dhacday ay tahay mid qadarta Alle ku timid. qoraalka ka soo baxay hoggaanka sare ee kooxda al-shabaab ayaa imaanaya iyada oo suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa oo ahaa suuqa ugu weyn ee magaaladaasi uu ku basbeelay dab xooggan oo qabsaday. khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay musiibada ayay mas'uuliyiinta xukuumadda Somaliland ku sheegeen warbixin horudhaca oo ay soo saareen in uu ku dhow yahay adduun lacageed oo gaaraya 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah iyadoo arrintaasi si weyn u gilgishay qulubta shacbiga Soomaaliyeed. dhammaan daafaha caalamka Soomaalida ku nool ayaa iminka isku diyaarinaysa inay garab istaagto reer Hargeysa oo suuqii ugu weynaa ee ay ku ganacsan jireen uu mar qura basbeelay, waxaana iminka meelo kala duwan laga aruurinayaa gurmadka loo fidinayo walaalaha Hargeysa. waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Garaa TV.